dadaalka qofku soo dadaalay meeshu maray si jaamacaduhu ay ugu tashtaan qofka ardayga u soo noqonay marka imtixaanka markii la dejinayna waxaa dejiyo dad aad u fara badan oo wax walbana ka dharagsan duruuftay fahmayaan waxay fahmayaan ardayga noocu ku soo barbaaray waxay fahmayaan adduunka inaan la tartanna aan rabno waxa uu yahay iyo waxa adduunku naga sugaayo waxay fahmayaan waxa la rabo in lagu shaqo tago ama lagu jaamacad tago ee la iska rabay fahmayaan waxaasoo dhan ayagoo miisaamayo ayay imtixaanka dejiyaan waa run imtixaanka hadda wuu ka duwan yahay imtixaanaadkii oo kale oo dhan wuxuu uga duwan yahay laba nooc iyadoo yani hadba qofkii ka munaqashoonaaya ay ku xiran tahay laba weji ayuu uga duwan yahay imtixaanaadkii horey loo qaadi jiray waa koow waqti cudurkii xumaa waddanka uu ku baahay cabsiduu ay cirka martay iskoolaadkii inaan xirina ay noqotay ayuu ku soo toosay weliba waqtigiisii dambe oo duruusta kuwa ugu adag inay baxaan ay tahay maxaa yeele isaga la socotaanba darsiba isku dhiibaa marka waqtigaas ku soo toosay wuxuu ku soo toosay waqtigii muraajacada inta badan la samayn jiray oo isku socodka muxuu ahaa iskuulaadka iyo ardayda dhexdeeda oo aad u badnaa marka saamaynta yeelan karto wasaarad ahaan khubaraadeen aad uga dharagsan yihiin waxa kale oo uga duwan yahay kuwii hore culays yar aan kordhinay sanadkan oo ah in sidii ay ahaan lahayd loo qaado oo maxay tahay form 1 ilaa form 4 inuu imtixaanku ka yimaado dabcan sanadba sanad buu ku dhiibayaa marka ardayga waxaa lagu tijaabinayaa xusuustiisa iyo muxuu ahaa aqoontiisa sida ay u degtay ay ugu xasishay korkeeda waxaa meeshaas dhibaato ka qabsan doontaa cudur aan la tacaalayna baryahan oo ah bobotiska arday sanadkan waxaa arkaya form 1 sanad dambe form 4 waayo waxyaalahaasay la tacaalaysaa marka ardaygu inuusan sanadna soo dhaafin ayay tahay laakiin culayska imtixaanku wuxuu ka imaanayaa fasalka muxuu ahaa 12aad inuu sanadkii markuu u horreeyey oo aan tixgelinay sanadihii horena in imtixaanka lagu soo daro ay tahay khubaraadeenna imtixaanka dejisay iyo kuwa saxaayo iyo mas-uuliyiinta muxuu ahaa wasaaradda dhammaantood waa ku baraarugsan yihiin marka waxaad ogaataan imtixaankan in uu noqon doono imtixaan meel walba ka dheelitiran dhinaca sixidda dhinaca kan haddana aan aqoon la'aan aan lagu gelin oo aqoon la'aan aan lagu sixin horta taas inaad qalbiga gashataan ayaan rabaa ardayda su-aashan dhowr mar ayaa si toosana loo weydiiyey warbaahintana laga weydiiyey marka ku kalsoonaada in mas-uuliyiinta imtixaanaadka ay xogta iyo dhibka aad ka hadasheen ay ku qanacsan yihiin ay og yihiin intaasaan ka leeyahay imtixaanka haddii eebba yidhaahdo muxuu ahaa wuu daahay waad garanaysaan inuu daahay sababtuu u daahayna waa ka dharagsantihiin laakiin shaqaalihii iyo macallimiintii dadkii saxayay waa kordhinnay si resultiga yani natiijada ay u soo degdegto waxaan rajaynaynaa in sitimaankan soo socdaba gudihiis weliba maalmihiisa hore aan shaacinno muxuu ahaa natiijada waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo in marka laga hadlayo natiijada soo dhejiskeeda in maantay uu soo afjarmay sixitaankii wixii haray inay tahay dhuudhuujiskii iyo natiijadii abaabulkeedii iyo in systemka la geliyo si qof walbaba asoo gurigiisa joogo ama teleefonkiisa haysto oo natiijadiisa u helo intaas waa intaas imtixaankii iyo natiijadii iyo aan intaa waxaan u malaynayaa inay jawaab ku filan tahay